kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel waa maalinimo Jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha Abriil sanadka 2021 barnaamijkeena maanta waxaan ku faaqidi doonaa dawladda Kenya oo dib u dhigtay xiritaanka xiriyaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma oo ay horaan ku dhawaaqday in si degdeg ah loo xiro dawladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xiriyaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma oo ay ku jireen qaxooti ay ka mid yihiin 100,000 oo Soomaali ah go'aankan ay ku dhawaaqday Kenya shalay kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR Filippo Grandi Kenya waxa ay sheegtay inay xiri doonto marka la gaaro bisha 30 Juun ee sanadka 2022 guddi ka socda dawladda Kenya iyo qaramada Midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiritaanka xiriyaha laga bilaabo 5 bisha May 2022 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Kenya dadka qaxootiga ayaa dib loogu celin doonaa wadamada ay ka soo jeedaan waxaana sidoo kale qaxootiga ka soo jeeda bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doona inay helaan ogolaansho si ay uga shaqeystaan gudaha dalka Kenya ayaa waxay sheegtay inay xilligan ku jiraan xiriyaha Dadaab iyo Kakuma qaxootidan ilaa 500,000 bishii hore ayay dawladda Kenya soo cusboonaysay go'aanka ay doonayso inay ku xirto xiriyaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go'aanka dawladda Kenya dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay go'aanka lagu xiray xiriyaha qaxootiga uu yahay mid siyaasadeed oo ay Kenya ku beegsanayso Soomaalida xilli ay is hayaan dawladda federaalka Soomaaliya